الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدومي حل باندا لما أنت وين سلام يا يمين يا أبا سيدي إنه إسلقرني إلا وصدره أجندها قضب كان حول النقاشة حالة ذلك وأرن مهم وها إن أكو صدر ترى داش بدون تين أو سوجيدين تيدا قبشنا أدبان ذيك ما نغينا إن وحوي حالة ذلك هدان هو سجود أدقو إن وحلوه رسيني أنا بتقليده إن وايو ودنكي سدا حلبانا ديجو ريشيجين waxaynu dunida ka iibinaa nabad hadaynu nahay Soomaaliland nabadii waxaad moodaa inay faraha ka sii baxayso oo ay dawladnimadeena sii rifmayso ciidamo hubaysan ayaa ka sameysmay gobolka Sanaag gobolka Sool dagaal culus baa ka socda ama la isku hor fadhiyaa gobolka Awdal والرحمية وحنا هاي سببتنا وحوي مرجع لي والرحمية ده وقتي إنه بنكي وشالة يعني ما هيك تاجني مظاهرات ذي كلا عيد لا أيان وش أقول لي هاي والرحمية أو تمشي بدن ما اللي بحي باكي واحد كلمة تاسي مرجع دجالك أنا أقول لكم وحنا كدير يا باغ نبضات والله ماذا جفو لبقى قبيل ما هو اللي بتجفو هوسة أو سومالي لا كود في قبل كسناك وحلايا هاي ولا يا المغلا علماء الدين كا يبرم الجديد اللي دي صدر الرئيس سومالي لان يمدح لك حقين كا صدق ساعنا إنه قصوا أفجرة أرنتها والنبر كويا madaxtooyada ayaa ahayd horta ka habsaantay oo muddo dheer ayaa waxa jiray guurtidu waxay gaadhay go'aan gole guurti ayaa loo diray waa ognahay wasaaradda arrimaha guduhu inay dhabar jibisay arrinka xasan yeeshee mirad daray duuduubka lagu liqaayay waxaan u jeedinayaa labada jifo arrinka Soomaaliland gudaheeda uma taagayno hawl kale ka bilaabatay walaalayaal dadka la diin soo diray yeelo nabadgelyada qaata ayaan anigu leeyahay waxa baaqaa nabadeeda ceelaf weyn kadib xukuumadda cusubi waxay jirtaa 7 bilood waqti baan hadaanu mucaaradka nahay aanu siinay بل إني هؤلاء يكون كلا فيرسو هدي دائما نقول هاي هدي هؤلاء كلا اللي جت جي هدي مالا لقى صار حري الدولة هراء وهي كده حلاني كسته يسكحش بعين وقت بانو سينه وقت كي تضرب بلاد بمريا دولة حكومة وحي خرطوا إنه وشتاني تقال عينا نبهني يمكن أنا سوى مرينا برلمان inkastoo uu dagaalku ka dhacay wadin Soomaaliland oo xuduudeena gudaheedii ka dhacay haddana waxay in baarlamaanka tashiga waan qabaa xilbaanadii ugu horeeyay ay sheegeen in la yara tashado sababtoo ah wadanka inuu shayna waa Soomaaliya oo inagu haysata gobolladeennii qaybo ka mid ah inagu haysata waxaana imika leeyihiin xukuumadduna waxay ahayd golihii guurtida sidii xukuumadaha kulmiye u qabsadeen shaqadoodii waa laga qaaday ilaa iyo 2010 2010kii wasiiraa loo diraa halkii guurtida looga diri jiray imika arrinka uu ka sii hooseeyo saddex suldaan iyo misr riflaa ayaa iyo nin kale dhowr ninoo suuqa jooga ayaa inta la ururiye la yidhi hawshii guurtida idinkaa ku filan ninku raaysan la yiraahdo ka soo daba hadlo wuxuu yiri waxa ay ku hadlaan waxba kama jiro waan dhageysanayo nimanka waxaanu maxaabiista isweydaarsan
marka waxaad moodaa qiimihii guurtida aynu ku soo caanamaalnay in arrinkeedii meel xun uu marayo wasiiradii baaba markaaba ayaanu dhaliilaynay hawshii guurtida qaatee in oday dhaqameed weliba Somaliland badh laga tegay oo barka aniga liiga doorto laga tegay si bareena ayaa loo diray marka kala qaybsanaantii wadanka lahaa doorasho kala qaybisay miyaan la sii wadin xanaftii doorashada miyaan la sii wadin muxuu ahaa ma Saciid ba ayaa ila ku fiiqayaan dadkii arrinkii aan lahayn arrinkii la lahaa xildhibaanadaas way maya arrinkii Saciid lama hadlay nibaylaha lamaysan ku adiga ma arrinkii ay ahayd in xanaftii doorashadu ka tagtay dadka la soo dhaweeyo waxaad moodaa in la sii kala fogeynayo xataa maxdar dhaqameedkii la diray laga tagay qaybtii wax tabanaysay Soomaaliland وعاكل ما نعرض حلبانة دي ما تقول يلا ولا هذا أريمات بدل ولا هذا الكي حكومتها كل مياه إلا فرين أنا أقول بركة أنا أضرب هاي وعم اللي ما كان الله هذا ما إنه سومالي الليلة سلاسة إلى خير بدلي حكومتها كل مياه واحد هذه ولا هذا العقبة كجرتها العقبة واحد كجرتها برعن بدايته waxa ku jirta lacagta la dagaalanka argagixisada xagga lacagta inaynu ka qaadano faritoog dheer bay kula xushaayeen way Somaliland way eeday wada hadalladii ay Soomaaliya la furtay waxa cadeynaya maamulkii hawada Soomaaliya ayaa la wareegtay maamulkii hawada ee Soomaaliland deeqii jamhuuriyadda Somaliland tooska loo siin jiray waa la joojiyay maanta ayaa la soo gabagabeenayo loo fadhiyaa Brussels sidii loo soo xili lahaa xamarna waxa laga kaxaystay niman ka soo jeeda asal ahaan Somaliland illa leeydi anaga Somaliland batala haduu ra'iisul wasaare ku xigeen noqon lahaa haduu gudoomiyaha aqalka sare noqon lahaa kii maaliyadda haduu noqon lahaa qolada ayaa leeydi Somaliland bay ka soo jeedano nimankaas waa niman edab daran oo waxba way maqli waanay lacagta ka joojiya maanta la soo gabagabeynaya Brussels waa fadhiya halka Somaliland waxa ka tagay